bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum caawa waxaynu ka hadli doonaa barnaamij ku saabsan gabadha ka qaylisiisay sirdoonnada reer galbeedka oo isuwan kuwa Soomaaliya iyo kuwa Kenyana kaashanaya ee soo qabashadeeda malaayiinta dollar la duldhigay asalkeeduna uu Kiristanka ahaa ee markii dambe islaamtay markii ay ka yaabeen ay u bixiyeen White Widow ama carmalka saanacadka ah ee ay ku sifeeyeen inay tahay gabadha adduunka ugu halista badan xilligaas haddaba ku soo dhawaada qisada gabadha adduunka kaga yaabisay Samantha Litwhite ama sida loo yaqaano carmalka saanacadka ah oo lagu sifeeyo inay tahay mid ka mid ah dumarkii ugu halista badnaa ee adduunka soo maray waxa ay ku dhalatay Ireland waqooyi sanadkii 1985 waxaanay sidataa dhalasho Ingiriisa caruurnimadeedii aad ayay u dhib badnayd oo waxay ku dhex rafaaday khilaafka labadeeda waalid ee joogtada ahaa iyadoo 11 jir ahna way kala tageen waxaana hal mar ku wada kulmay burburka qoyskeeda iyo iyadoo xilligaas ku jirtay xaaladeeda barbaarnimo waxayna la kulantay xilligaas kadeed badan waxa ay mar walba isha ku haysay jaarkeeda muslimiinta ah ee ay dariska yihiin ee qoysaskoodu xiriirka wanaagsan la leeyihiin ee micnaha iyo kaalinta qoysnimo isu buuxinaya dhacdadaas 4 sano kadib oo ahayd sanadkii 1999 ayay Samantha go'aansatay inay muslimto waxayna la baxday magaca Sharifa muddo kadib waxay internetka iska barteen wiil lagu magacaabo German Lensi aakhirkiina way isguursadeen ninkaas oo ku caan ah magaca Cabdulla Shahiid Jamaal markaas ayaanay qaadatay afkaarta jihaadiga ah oo ay bilowday falal jihaadnimo waxayna bilowday mawjad tabarucaad ah oo ay jihaadiyiinta dhaqaale ugu ururinayso oo taxan Ingiriiska Koonfur Afrika Pakistan ilaa Soomaaliya waxayna dhaqaalahaas ku maalgelinaysay jihaadiyiinta bariga Afrika sirdoonnada galbeedka iyo kuwa Afrikaba way la socdeen dhaqdhaqaaqeedaas inkastoo ay raad gadanaysay oo ay wax cad ku waayeen waxaana laga filayay inay qorsheynayso hawlgal isqarxin ah oo la mid ah kuwa uu ku baxay ninkeedii German Lensi oo isaga iyo saddex ay saaxiibayeen isku qarxiyeen afar kala duwan oo ah tareenada midrooga ah ee dhulka hoostiisa mara London oo ay ku dhinteen 250 qof 100 qofna ay ku dhaawacmeen ninkeeduna uu kaligii dilay 26 qof iyadoo carmalowday oo uur leh iyo ilmo yarna oo adduunka kaga tagay sanadkii 2007 ayay haddana Sharifi guursatay Xabiib Saalax Al-Qani oo khabiir ku ahaa samaynta bambooyinka iyo qaraxyada ilmaheeda saddexaadna isaga ayay u dhashay wadanka Kenya ayay ula guurtay oo ay la degtay halkaas oo ay sirdoonadii daba socdayna raadkeedii ku waayeen muddo kadib ayay soo baxeen xogo daaran inay qayb ka ahayd hawlgalkii isqarxinta ahaa ee ninkeedii hore ku baxay hal mar ayaana la sheegay inay wada raadinayaan Sharifa sirdoonnada Mareykanka Ingiriiska Kenya iyo Soomaaliya Interpolkuna waxa uu soo saaray qaraar ah halkii lagu gaadho in la qabto madaxeedana waxa la duldhigay 5 milyan oo dollar kadib in muddo ah oo ay u kala socdaalaysay wadamada Tanzania Soomaaliya iyo Kenya ayay fulisay 5 hawlgal iyadoo ay ilaalinayaan ururka Al-Shabaab waxaana laantaas shabaab ee ay la shaqeynaysay looga yaqaanay Dada Mazongo oo ah afka Sawaaxiliga walaasha cad sida ay dhigayaan xogo sirdoon oo ay soo tibaaxeen sirdoonka Ingiriisku waxay ku sheegeen inay Sharifi deganeyd guri weyn oo qasri ah oo ku yaala magaalada Mombasa waxaana ay halkaas ka abaabuleysay duulaan ay ku ugaarsanayso dalxiisayaasha Ingiriiska ah gurigaasna waxa ku duulay sirdoonkii Kenya waxaana sidoo kale lagu tuhmay inuu yahay saldhig lagu diyaarinayay weeraro isqarxineed oo la fulin rabay waxaana laga helay kombiyuutarkeedii u gaarka ahaa waxaana qalinka lagu duugay inay qorsheynaysay duulaankaas haddana waxa soo baxday xog ah si ay u dhuumato oo meesha ay joogto aan loo ogaan inay sida reer baadiyaha awriyada oo fuushan ay socdaali jirtay feejignaanteeda saayidka ahina ay sababtay inay qudheeda marar badan la badbaado oo ay ka mid tahay mar ay diyaarad Kenya leedahay duqaysay saldhig tababar oo ay lahaayeen kooxdaasi sida ay sheegeenna ay ku dileen 750 xubnood oo ururkaas ka tirsan 6 ka mid ahina ay ahaayeen taliyayaashii sarsare ee ajaanibta ahaa qodobka ugu badan ee gabadhaas sidan oo dhan looga qayliyay ee loogu sheegay inay tahay gabadha adduunka ugu khatarsan carmalka saanacadka ahna loogu bixiyay waa inay ka tirsanayd Al-Qaacida oo ay guursatay rag jihaadiyiin ah intaasoo qura
aanay ku ekaan ee ay tababari jirtay dumar ay ka dhigaysay kuwo isqarxiya oo jihaadka ka qayb qaata. waxaa sidoo kale lagu eedeeyaa inay ahayd gabadhii ka dambaysay weerar lagu qaaday baar ku yaala Nairobi oo ay reer galbeed badani ku daawanayeen ciyaar kama dambays ahayd oo dhex maraysay Ingiriis iyo Talyaani, oo qaar ka mid ah dadkii badbaaday ay sheegeen inay arkeen gabadh cad oo bambooyin ku tuuraysay baarka. haddaba qodobka ugu yaabka badan ee gabadhan laga soo tabiyey ayaa ah in sida dhacdadaasba ay dad u sheegeen inay arkeen gabadh cad oo bambooyin tuuraysa si la mid ah ay dadka badbaaday dhacdadii wasdigeeda caanka ahayd ay u sheegeen inay arkeen gabadh cad oo qoladii weerarka ka mid ah oo weliba sidata qori bardalool ah oo qoladii halkaas qabsatay ka mid ahayd. waxaa sidoo kale saxaafadda Nairobi ay xustay inay qayb ka ahayd qaraxyo kale oo ka dhacay xarunta ganacsiga ee Nairobi. guud ahaan marka ay u xisaabinayaan gabadhaas Shariifa waxay dawladahaas u geysatayna waxay ku sheegaan inay galaafatay wax ku dhow 400 oo qof. mar dambe ayuu shiishyahan Ruushhay sheegay inuu reer galbeedka wanaag badan taray oo uu toogtay gabadhii kaga cabaadisay. wakaaladda wararka ee Ruushka ayaa xustay in gabadhaas uu shiishyahankoodaasi ku dilay aag bariga Ukraine ah iyada oo la safan dagaal ay wadeen koox samafal u dagaalamaysa oo la yiraahdo Iidaar oo Ukraine difaacaysay, halkaasna ay gabadhaasi ku dhimatay. intaasi waa qisada gabadha lagu sheegay inay tahay gabadhii ugu halisaysnayd ee sirdoonnada reer galbeed markii ay ka yaabeen u bixiyeen carmalka saancadka ah. iyaduna isu taqaanay Shariifa ahaydna gabadhaas la xusay inay wasdigeed qayb ka ahayd. aad baa u mahadsantihiin. wassalaamu calaykum.